بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دوادا صافي channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob ku saabsan caruurta khaasatan teenage-ka. marka maxay ahayd teenage-ka sida aan wada ognahay guri walba ma sha Allah caruura joogta caruurtaas qaar yara korayo teenage gaaray. problems badan ayaa marka teenage-ka ka jira hata adduunka meel kastaba ma dhahayo Europe kaliya ka jira iyo qurbaha wadankeeniba waa ka jira problemkaas marka waxaan ka soo fakaray 10 qodob oo aan isleeyahay waa anfacayaan dadka teenage-ka ah hadii 10kaas qodob lagula dhiil gareeyo ama loo sheego ama la baro ama lagu koriyo inay anfacayaan mustaqbalka ayaan rajaynayaa marka horta arinta ugu weyn oo problemka waalidka adduunka oo dhan hadda haysta waxay tahay arintan social media iyo gameskan la ciyaarayo gamekan weyn oo hadda maxay tahay adduunka oo dhan kaga qaylisiyay la dhahayo maxay tahay Fortnite waa shaydaan guri kasta dhex fadhiyo waayo dadkii macal gaaladii ka qaylisay Fortnite the biggest shaydaan oo adduunka la create gareeyay waa kaas marka caruurta ma aha ma garanaysaa wax inta la dhalade la rasaynayo oo guriga furniture ma aha waa dad bini aadan oo nuxnuxsanayo carcararayo oo aqli leh oo fakarayo oo raba inay hadlaan iyo inay ciyaaraan iyo inay cararaan iyo inay hadlaan iyo attention rabaan marka waxay waqtiga Soomaalideena waa ka mashquulna caruurta iyo attention koodi marka waxay noqotay caruurtii ama inay labay noqotay ama inay maamushaanba oo waalidkaba ay maamushaan oo siday doonaan ka yeelaan ama waxayba noqotay inay farihi ka baxaan marka bal 10kan qodob idin la share gareynaya waxaan rajaynayaa inay wax idin taraan hadii Ilaahay yara insha Allah horta qodobka ugu horeeya waxay tahay qofka haduu teenage yahay waa inaad mashquulisid inuu guriga ku dhex fadhinin inuu ku fakirin adiguna ku mashquulinin waa inaad asaga mashquulisid mashquulinta aad mashquulinaysid naftirkeeda adiga waxay keenaysaa ina attention ilmihii ay helaan oo attention aad siisid marka horta mashquuliyo haduu waqti isbeera haysto intuu banaanka u bixi lahaa darbiyada soo istaagi lahaa oo dib keeni lahaa qorshe u samee qorshahaas hala raaco qorshahana marka sameynaysid ma aha markuu ilmaha suuqa bilaabo inuu aado oo uu suuqa barto ma aha ma u sameynaysid qorshaha marka uu yar yahay sameynaysa inta uu yar yahay ayaad qorshaha ku soo bilaabaysaa uu ku korayaa by the time uu teenage noqdo asagoo jaamacad ka soo baxay oo last 5-6 years soo train gareynaysay ama ka badanba ayuu soo gaarayaa waqtigaas marka oo de maskaxdii ay majuurtay oo kortay ayuu waqtigii soo gaarayaa lama rabo ilmaha hadda baxbaxsad ku jiro raba inuu suuqa soo istaagay inaad tiraado kan samay ma yeelayo because umaadan sheegin kumaada soo korinin marka aan hadalka soo kooba qodobka koobaad horta waxa weeyaan ilmahaas haduu waqti haysto waxa leedahay or shaqo tag weekend-ka ha ahaatabe or soo shaqayso marka iskuulka jirtid iskuula jirtaa shaqo or soo shaqayso waa qodob labo waa inuu ilmaha hobby leeyahay hobbyga waxay tahay inuu like sport iyo magaranaysa activity iyo wax u baxo taasna waxay ka soo jeedaa inaan markuu yaraa aad bartay not asagoo weyn markuu yaraa waa inaad bartay football inuu ama aad geysid ama swimming geysid ama maxay ahayd rugby geysid ama ilma walba dooq uu leeyahay adaa og ilmahaaga dooqa uu leeyahay iyo waxa uu jecel yahay inuu sameeyo marka waxaas uu jecel yahay sportkaas uu jecel yahay inaad ka caawisid oo aad geysid oo uu sportkaas barto oo aad important ka dhigtid oo riixdid inta aad riixi kartid regularly uu u tago sportkaas ilmahaas waa very very important maxaa yeelay marka uu ku koro hadhow waxaas la qabsado hadhow ma garanaysaa weligiis active u ahaanaya inuu waxyaabo kala sameeyo rabayaa banaanka iyo darbiya istaaga uu ka mashquulayaa marka inuu hobby leeyahay uu sport sameeyo waliba sportyada qaar diinteenaba qabtaba swimming ilmaha la baro archery in la baro waxa marayna falaadha sida falaadhaha loo tuuro la baro sportyada qaar diinteenaba qabtaba marka sport inaad ku sii jeedisid inuu ilmahaas active ahaado qodobka saddexaad guriga
haddii wax looga baahan yahay horaan arrintaas mar video kale ugu meeshan gareeyay guriga haddii wax looga baahan yahay waa inaad ilmaha bartaa inay fix gareeyaan sameeyaan haddii qol la rinjiyeynayo haddii gardenka la jarayo حتى هدي shoppingka aniga markaan soo adeego baabuurka halkaasaan dhigaa parkingkaan dhigaa wiilkayga u yaraa shoppingka soo dejiyaan dhahaa shoppingka soo deji waa shaqo shoppingka soo deji kala xaray waliba shay walba meeshiisa geli waa shaqo huuvaray guriga waa shaqo miisa la keenaa ama kursi waxbaa la keenaa fix garay xir daaha aan mashiinka geliya iisoo fur waa shaqo shaqada guriga inay ilmaha kula qabtaan waa inaa bartaa barritay anfacaysaa ceeb ma aha wiil iyo gabadhba hadhihin gabdhahan shaqada baraya wiilasha ma barayo more importantly aniga wiilashan more ku shaqeeya wiilasha maxaa yeelay barrita waa iyaga kuwii mas-uulka noqon lahaa naagay mas-uul ka noqonayaan caruuray mas-uul ka noqonayaan wiilka waa inaad more train garaysaa dan gabadha because gabadha mas-uula laga noqonaa wiilkase mas-uul ayuu noqonayaa marka wiilka shaqaday ka badan tahay ka culus tahay u dir qodobka afraad bar inay maxay ahayto ay hadii ay dad isku dhacaan oo kale inay qofkaas uu iscontroli karo oo una dagaalamin oo ma garanaysaa uu dabeecadiisa celin karo qofka asagoo aan la dagaalamin uu ma garanaysaa uu la hadli karo oo aanu xanaaqin oo aanu gacanta qaadin oo sometimes xitaa hadii ay adkaato inuu xal hadal ku waayo intuu dagaalami lahaa uu ka tago meeshaas inuu macnihii dareenkiisa controli karo bar nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la ninaa yiri ila tali markaasuu yiri ha caroon markaasuu yiri hay maxaa kale igula talaysa markaasuu yiri ha caroon 3 goor yiri ha caroon marka ilmaha bar inaanay markiiba xanaaqin hadday wax difficulties la kulmaan ama iskuulka kala kulmaan ama waalidkood ama saaxiibadood waa inay hadal ku xaliyaan ama ay markay xanaaqsan yihiin ay ka lugeeyaan meeshaas oo dib dambe arrinta looga hadlo iyadoon la xanaaqsanayn qodobka xiga oo aan u malaynay inuu qodobka shanaad yahay ilmaha bar inay cunto nadiifa cunaan cunto healthy cunaan cuntada qashinka ah ka jooji cuntada healthyga markay ilmaha cunaan aqligooda si fiican u shaqeynaya iyo maskaxdooda jirkooda qurux badnaanaya caafimaad badan ayay helayaan siday u fakarayaan iyo wax walba ayay ka caawinaysaa cuntada healthyga markaad ilmaha siisid marka maxay tahay ku dadaal inaad ilmahaaga cuntada healthyga bartid cuntada janka iyo qashinka yaanay ilmaha cunin ma fiicno horaan arrintaasna uga hadlay qodobkeena xiga ee ah qodobka 6aad bar ciyaalka waxii ay haleeyaan inay hagaajiyaan wax ay doonto ha ahaato wax yar iyo wax weyn waxay qaribaan inay fix gareeyaan ay hagaajiyaan bar oo ay macnaheedu mas-uul ka yihiin iyaga khaladkooda inay saxaan ma aha intay khalad sameeyaan oo wax qasaan inay ka wog away gareeyaan oo aan cidna aanay waxba weydiinin sax ma aha example fiicanna ma aha qofka wuxuu mess gareeyo waa inuu fix gareeyaa qodobka kale xiga bar inay maxay ahayto ay isdifaacaan markaan idin leeyahay ma aha inay dagaalamaan oo dadka feedhfeedhaan ma aha inay isdifaacaan waxa weeyaan iyagoon dagaalamayn inay haddana xaqooda soo dhacsan karaan marka waa very important qodobkeena xiga bar ciyaalka inay maxay ahayto kalsoonida inay isku kalsoonaadaan arrintaas ah inay isku kalsoonaadaan waa arrin sheeko dheer maxaa yeelay anna waa arkay idinkana kolley waa aragteen caruurteena soomaalida problemka ugu weyn oo na haysta waxay tahay kalsooni xumo iskuma kalsoonin marka maxay ahayd waa very important ciyaalka inaad saasay u wada fooraraan laba kalmadood kuma dhigi karaan qof waxba ma weydiin karaan ma garanaysaa xishood iyo ma garanaysaa confidence la-aan badan ayaa ka muuqata arrintaas waa very serious confidence la-aanta kalsooni darrada caruurta haysata waxa weeyaan problemkana haysta oo dhan ayay number 1 ka tahay number 1
hadda yalsanina ilmaha bara inuu confident ahaado isku kalsoonaado waa inaa bartaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah iskuuladan aan ilmaha u dirna maxaa laga soo baraa iskuulada waxaa laga soo baraa anaa idiin sheega horta primary age-ka oo dhan caruurta waxaa la baraa how to obey sharciga sidaa u fulin lahaydoo ay how to obey aa la baraa ko waxaa kaloo la baraa how to say please, thank you, excuse me waxaasaa la baraa ciyaalka sida loo tuugsadaa la baraa how to obey iyo sida madaxa loo foorariyo iyo sharciga loo raaco iyo waxaasaa qashinkaasa iskuulada horta laga soo baraa ilmaha marka ilmaha already waaba bahdilan yihiinba arrimihii kalena waa u dheer yihiin oo midabka ahaa iyo all these problems oo kalena waa u dheer yihiin marka ciyaalka iskuulada horta waa lagu soo bahdilaa guryaha markay yimaadaan ma laga warhayaa waayo waa su-aasha waxay u badan tahay may lagama warhayo marka ilmaha kulli waa wada fooraraan kulli waa wada xishoonayaan kulli xishoodka horta wax xun ma ahane kulli way baqayaan baqdina ku jirta baqdin kalsooni darra ka muuqata bara waa very very important arrintaas number 1 waay cunuga inuu dareemo inuu confident yahay uu isku filan yahay oo waxba ka halaysnayn uu dadka la mid yahay amaba ka sareeyo waa inuu ilmahaas dareemaa siduu u dareemi lahaana waa shaqadaada adaa waalidkii ah aday shaqadaada tahay qodobkeena xiga ilmaha maxay ahayto talada guriga la sheergareeya talada guriga la sheergareeya markaan idin leeyahay yaanu dareemin ilmahan maamulka guriga especially kuwa waaweyn ee teenage-ka ah yaanu dareemin inaad wax ka qarqarinaysid oo ma garanaysaa aadan la tashanaynin oodan waxba weydiinaynin oo waxaa loo baahan yahay familiga markay isu yimaadaan la wada tashanayo la wada hadlayo kala dambeyn iyo in la wada tashto wax la isweydiiyo ilmaha ay dareemaan inay part of the circle yihiin groupka inay ka tirsan yihiin hooyo aabo qolyaha waaweynna wax la weydiinayo maxay kula tahay maxaan yeelnaa maxaan soo gadnaa maxaan sameynaa in la weydiiyo dhaqaalaha guriga soo galaayo habka loo maamulayo qolyaha waaweyn waa la sheergaraynaysaa maxaa yeelay waa laba arrimood way ka anfacaysaa inaad la sheergaraysid caruurtaada dhaqaalaha guriga iyo sida uu ku baxo labada arrimood ay kaa anfacaysa waxay tahay kow horta ilmahaas 10 siinaysaa siduu hadhow gurigiisa u maamulan lahaa uu mas-uul u noqon lahaa oo xisaabta guriga timaada loo kala maarayn lahaa maxaa gaas lagu bixiyaa maxaa koronto lagu bixiyaa maxaa taleefon lagu bixiyaa maxaa adeega ku baxa maxaa la dhigaa maxaa batrool gala waa inuu ilmaha sida aad lacagta guriga soo gashay aad u manage garaynaysid ay u qorshaysan tahay waa inaad la sheer garaysaa caruurtaada waxa waaye waa 10 nololeed bari anfacaya ilmahaas kow labo arrinta labaad ee ka anfacaysa waxay tahay in ilmahaas uu og yahay dhaqaalaha reerka iyo meesha uu ku sugan yahay oo aanu barito ku weydiin doonin wax tabartaada ka baxsan maxaa yeelay ilmihii hadda waxayba u bateenba wax tabartii ka baxsan inay ku weydiiyaan oo ay suuqa ama ka arkeen social media kaba qaaliya iyo alaab wada qaaliya koorar qaaliya iyo waxaan awoodaada ahayn markaad maya tiraahdid ilmihii maya haddaad tiraahdo ma gadaay wuxuu isleeyahay why laakiin haddaad tiraahdo ma gadi karno hooyo waxaan ma gadi karno maxaa yeelay ma awoodno dhaqaalaheena waa ka warhaysaa lacagtana soo gasho waa intaan mid walba meeshii aad waa ogtahay waxaan aad sheegaysid awood uma lihin okay haddii markaas wax shay muhiim oo ilmahaas uu yahay oo aad la rabtid oo la jeceshahay waxa leedahay okay waa u safe garaysanaynaa shaygan waa kuu gadayaa waa jeceshahay waana kuu ogolahay inaad yeelatid laakiin waxay nagu qaadanaysaa intaas inaan safe garayno markaasaa lagu gadayaa marka arrinta waxay kaa safe garaynaysaa ilmihii adiga inaad isku dhacdaan oo wax walba uu suuqa kasoo arko iigad iyo makuu gadaa isqa qabsasho iyo cuqdad iyo buuq iyo dagaal ayay kaa safe garaynaysaa marka dhaqaalaha guriga iyo sida loo manage gareeyo ilmaha qolyaha waliba waaweyn waa inaad la sheer garaysaa oo ay ka warhayaan qodobkeena ugu dambeeya
waxay tahay waa waalidka qodobkan waalidku quseeyaa qodobkan waxay tahay waalidow waa inaad good example ilmihiina u noqotaan oo ilmaha aanay arag mix signals wax la yiraahdo macnihii hooyo aabo marna dadka isu tusaya inay dad fiican yihiin oo ma garanaysaa image gooni marna dadka tusaya image kale oo macnihii dabeecad kale iyo dhaqamo kale oo gooni ahna caruurtii iyo reerkii ku maamulaya inayna caruurta aanay mix signals aanay arag iyo laba waji inaanay arag oo ay arkaan waalid toosan oo maxay tahay ay u arkaan inay maxay tahay ilmahooda iyo gurigooda iyo waxooda ay si rasmi ah u maamulayaan oo daacad ah oo qorshaysan oo jacayl iyo naxariis iyo ixtiraam ay ku dheehan tahay laakiin haddaad ilmaha marna waji tustid marna waji tustid waa arrintaas ilmaha way confuse garaynaysaa dhaqan xumo iyo hawl oo dhan halkaasay ka bilaabataa marka waalidka inuu good example yahay maxaa la yiri guriga waalidka waa macalina la yiri gurigana waa school marka iskuulka ilmaha waa inaad si fiican ugu tarbiyaysaa oo dhaqan wanaagsan bartaa marka shaqadaas waalidkana laga rabaa caruurta kaliya yaynaan eedeynin oo aynaan farta ku fiiqin waalidka naftirkiisa waa inuu dib isu eego oo maxay ahayd naftirkiisa waalidada qaar eeda wax ku leh marka waxaan rajaynayaa videogan inaad jeclaysateen kana faa'iideysateen hadday jawaabta saas tahay thumbs up subscribe gareeya maxay ahayd wixii comment ana hoos iigu soo qoro anigoo isku dayi doona inaan idinka jawaabo assalaamu calaykum waraxmatullah